markaas qaabka loo isticmaalay aan idin tusaya qaabka loo isticmaalay aan idin tusaya insha Allah kulli waxaan waa noocyadiis kala aswad kuya waxaan rabaa inaan idinka caawiyo qaabka loo isticmaalay kan dhaladaas aan isticmaalayna dhibic waxaan kaga shubanaynaa halkaas dhibic kaga shubanayna ka bacdina qoobkaas faaruq qoraan quraan ugu akhriyo suuratul faatiha barabbal falaq barabbal naas aan ugu akhriyo way miskiga intaadan isticmaalin ka hor quraanad ku tufaysa ama quraan lagu akhriyo taqriiban ka bacdi waxa rabtaa waxa ku dhibay si aad xal aad ugu hesho shayaadiinta dhibic aad halka ka shubanaysa hal dhibic ama laba dhibic ama saddex dhibic bas dhibicdaas marka bacdi waxa sameynaysa biyo hore aad quraan ugu akhrisatay aad ugu tuftay hadii jiro biyahaas aad ku shubanaysa والله المستعان طيب بيها زاد كذا شو هنسا بعد كل شو هنسا بسم الله هدي بي يرى فرديرة أما حغير ديران استعمال شنو أوكي ويان بعد كل شو هنسا أوكي بعد كل شو بيها ما كنت أقول شيء حاسة من هنسا حبينك أنت هذا سيحان كهر أنت سيحان كهر لأن حلي وقت هذا شياطين تأسود ديان لو وقت هو خطر سن فجرك وقتيسي يوم مغربدي إلا اللي حسا حبيني موقفك وحوين ضدك قارني دبيهن إن بدن يكون دبيهن واستعمال سامر والعبي قرآنك أخرسي دبع هاد كذا درستي على لبد دبع كبعد نحويان بيهاسي ملقي بدحتون هفيرين بسم الله دعب وحب لنا أو إلهي إذن كيسان كوبلا قاضية واحد جركا كجري شياطينا يعني كل بيه إننا كجري جدونين تاسوا مدة بسم الله الله متك كلام استعمال كيسي أساسا كوعبي بالكان مسك الأسود أوكي كوا متك وحسمينا ساعة حتى مثلا عاشق كوهاي أما أم صبيان أو كوهايو أم صبيان كانت دوق جوني ورباعسي لكن كان كلية معها أم صبيان كلمها سوريدية دوق كلا كدوم وقاضني لكن كم وقاضني قاب سيجارة ولو ترجع أي الله استعماله حبينت ترك الله استعماله أسيء مركب وح ليس استعماله دور من الدوات وكم دي مسك الأبيض كم مسك الطهارة وكم دي كمركب وحسمين سمركب به أو أتقدر ستي مسك الأسد كقدر ستي أتعبتي أنت سيحن كور وحسمين سمركب قربها هذه قورت هذه مضح هذه دجا هذه إنها قربته السراء لا وجهها dhabarka dambe wareega oo dhan xibinta taranka eeriyadeedii ayaad marinaysaa waa kan iyo barkinta aad ku seexanayso mara kala oo kale mara madow oo kale isticmaalaysa lambarkan waxa meesha ku dhigo dharka ka soo noqonaysa dharka cad kala saasaad ku soconaysaa waa isku cilaajinaysaa taa waa mid halka markaan ka gudbo insha Allah taala waxaan rajaynayaa qof kasta ee xanuunsan Ilaahay ku caafiyo sida uu isticmaal miskiga barakallahu fiik assalamu alaykum